السلام عليكم سلو هذا ما تحكى لنا ان شاء الله كاردياك اوت اوكي وحكو جينا ولي سيريس كي اوف كارديولوجي اوكي كارديو فاسكولار سيستم نوت كارديولوجي وحكو جينا كارديو فاسكولار سيستم وحاسو قادني كاردياك سايكل وحاسو قادني انترودكشن تو كارديو وحاسو قادني كوندكتيف سيستم اوف ذا هارت وحاسو قادني هارت ساوندز ما انتو قادنا ان شاء الله تعالى كاردياك اوت اوكي كاردياك اوت وحو كميد ديال وحيابا وميسن كارديو فاسكولار سيستم هذا كاردياك اوت اخواني وادي قلنا وحبة اخواني كارديو فاسكولار سيستم سو كاردياك اوت معناه محاواي وحاله وضع كاردياك معناه هذه وضنا اوت بدنا معناه محاواي وحو سو ساراي اوكي سو كاردياك اوت ومهمه وحالو سو قاويا سي او اوكي ومركا حديقه ديقه الجرك لغيو waxa la yiraahdaa daqiiqadii waxa lahaa cardiac output okay cardiac output marka waxa lagu helaa laba shay markii la isku dhufto ayaa cardiac output la helaa labada shay maxaa waay waa stroke value waa usoo gaaban sv waxa usoo gaaban stroke value hadii kale aan qoro waxa laga wadaa stroke value oo lagu dhuftay heart rate stroke volume oo lagu dhuftay heart rate ayaa waxa lagu helaa cardiac output okay cardiac output waxa lagu helaa stroke volume oo lagu dhuftay heart rate so marka waxa amaanto dhan aan ka hadli doono wuxuu noqon doonaa stroke volume iyo heart rate okay sidoo kale waxaa jiro waxa la yiraahdo minute value okay minute value macnaheedu waxa laga wadaa daqiiqadii meeqa la gaarsiiya jirka dhiig meeqa la gaarsiiya okay ayaa laga wadaa so macnaheedu waxa waaye waxaa laga wadaa macnaha daqiiqadii jirka dhiig meeqa la gaarsiiya waxaan isku dhufanaynaa stroke volume-ka oo ah 70 ml iyo heart rate waxaa laga wadaa minute value macnaheedu waxa waaye daqiiqadii dhiig jirka cardiac output meequu soo saaraa cardiac output normally cardiac output waxaa soo saaraa 5 liter ayaa soo saaraa 5 liter per minute halkan muhiim jiddan waay daqiiqadii jirka cardiaga wadnaha wuxuu soo saaraa 5 liter ayuu soo saaraa so 5taas liter markii la soo saaro jirka sidoo u qaybsadaa okay jardskan ay qaadi doonaa halkan ila fiiriyo 5 liter markii la soo saaro liverka wuxuu qaadan doonaa 1500 ayuu qaadan doonaa okay oo u dhiganto 30% liverka qaadan doona okay kidneyga ayaa ku xigo wuxuu qaadan doonaa 1300 oo u dhiganto 26% okay 26% waxa qaadan doona kidneyga ayaa qaadan doona okay and skeletal muscle marka ayadana waxay qaadan doontaa 900 ml okay meesha maxaa waa ml okay ml okay ml so marka brainkan wuxuu qaadan doonaa 800 ml oo u dhigmato 16% cardiac output kala soo saaray qaadan doonaa bone iyo git skinka waxay qaadan doonaan 300 ml oo u dhiganta 6% heartiga naftirkiisa wuxuu rabaa wuxuu ku shaqeeyay wuxuu qaadan doonaa marka 200 ml oo u dhigmato 4% so halaas waxaan ugu dhamaatay marka 5 liter okay 5 liter per minute so hadii uu dhaw marka minute value maxaa waaye inta output ka cardiac soo saaray daqiiqadii waxa loo yaqaan minute value waana maxaa la yiraahdaa 5 liter 5 liter jirka u qaybsada saan soo sheegnay uu qaybsada خلاص okay سيل وهذا marka minute value hadarna soo saarana minute value hadarna soo saarana si ku leeyahay waxa ku leeyahay stroke value-ki iyo waxa isku dhufanay heart rate waa soo sheegnay heart rate wuxuu 72% ayuu noqdaa 72 ayuu noqdaa okay 72 ilaa 75 ayuu leeyahay heart rate garaaca wadnaha waay so isku dhufo marka maybe waxay noqonaysaa marka 5000 iyo 200 iyo waxay noqonaysaa waxa ka soo qaadanaynaa marka 5 liter per minute okay and how many marka stroke volume and heart rate stroke value maxaa la yiraahdaa heart rate maxaa la yiraahdaa intaan u galin core stroke volume iyo heart rate waxaa jira wax la yiraahdo end diastolic
value iyo waxaa jira wax la yihahdo end systolic value. waa muhiim inaad taqaanaa labadan shay. haddaadan aqoonin waxaan sheegi doono ima fahmi doono. Okay? maxaa laga wadaa marka end diastolic value, maxaase laga wadaa end systolic value? Okay, halkaan ila fiiri. markaan kasoo hadlaynay cardiac cycle, markaan kasoo hadlaynay waxaa dhahanay diastolka markii la joogo dhiig jirka wuxuu soo gali doonaa ventricle. Okay? ventricle-ka halaha dhiig ee soo gasho markuu buuxsamo ventricle-ka halaha dhiig ee soo gasho during filling phase markii loo jiro diastolka halaha ventricle-ka dhiig soo gasho waxaa loo yaqaana end diastolic value. Okay? end diastolic value macnaheedu maxaa waaye halaha dhiig ee ventricle-ka kasoo buuxsamo waxaa loo yaqaana end diastolic value. waxaana lagu qiyaasaa boqolkiiba inay udhexeyso 100 ilaa 120. waxay udhexeysaa end systolic waxay udhexeysaa 120 ilaa 140. Okay, ay udhexeysaa marka. hadalkaas muhiim waa inta uu ventricle-ka ka buuxsamo. Okay, waxaa kuu soo marka end systolic value. end systolic value-ka intaan gelin kood waxaa kuu sheegaa stroke value. Okay, asigna inaad fahantid waa maxay stroke value. stroke value maxaa waaye dhiigga markuu ventricle-ka uu soo buuxsamay waa in la tuuraa soo ma. markii la tuuro inta la tuuray oo kaadiyaha uu tuuray loo yaqaana stroke value. Okay, stroke value waa inta la tuuray. so meeqa la tuuraa marka intuu badan waxaa la tuuraa 70 mm. Okay, 70 boqolkiiba 70 mm. so end systolic value maxaa marka end systolic value wax kale ma aha. end systolic value maxaa waaye markii la tuuro stroke value dhiig markii la tuuro halaha meesha ku harayso waxaa loo yaqaanaa end systolic value. Okay, meeqa lagu qiyaasaa 50 lagu qiyaasaa marka 50 mm lagu qiyaasaa marka. hadalkan waxaa rabaa inay ila fahantaan, so important waa marka. stroke value maxaa waaye stroke value maxaa waaye markii dhiigga uu ventricle-ka soo buuxsamo waxaa loo yaqaan end systolic value. markii la tuuraayo marka oo la tuuro waxa la tuuraayo waxaa loo yaqaana stroke value. Okay, waana 70 mm. markii dhiig la tuuro meesha waa inay wax ku haraan. Okay, qasab waaye waxaa hari doona marka waxaa loo yaqaanaa end systolic value waxaana qiyaastiisa gaaraa 50 mm. Okay, so marka maxaa la yihahdaa maxaa lagu helaa marka stroke value maxaa lagu helaa waxaa lagu dhihi karaa stroke value maxaa lagu soo saari karaa. waxaa rabaa inaan soo saaro stroke value. see ku soo saaraa stroke value waxaa lagu soo saaraa maxaa la yihahdaa waxaa kala jira keliya end diastolic value iyo end systolic value la kala jiray bis. labada markaa kala jirtid waxaa ku soo bixi doona stroke value. Okay, nadiif ma. Okay, ka gudub marka ka gudub. hadda waxaan ka hadlaynaa marka waxa yiraahdo factors that determining cardiac output. Okay, waxaan ka hadlaynaa factors determining cardiac output. cardiac output waxaa jiro factors go'aaminaya cardiac output in laga hadlan ee muhiim tahay. haddaadan aqoonin hadhow waxaa waaye lagama yeelaayo ma aqoonin. Okay, waa muhiim marka inaan ka hadlano. so kow waxaa waxa loo venous return. venous return macnaheed maxaa waaye saa ognahay jirka markii dhiigga la gaarsiiyo kadib waa in laga soo qaadaa waste products. so waxaa soo qaadaa vein dhiigga markii lasoo qaada marka waxay imaan doonaan right heart-ga. so haddii venous return-ka uu bato dhiigga la soo celinaya hadduu bato cardiac output-kana waa badanaa. Okay, hadalkaas muhiim waay. cardiac output-ka uu badanaa haddii venous return bato. so direct proportional isku yimaan. venous return is direct proportional to cardiac output. Okay, direct proportional macnaheedu waxaa waaye cagsi isku yihiin. macnaha waa isku same. haddii uu bato venous return cardiac output-kan waa badanaa. haddii venous return uu yiraahdo cardiac output-kan waa yaraana. Okay, so marka kow venous return waaye. venous return marka maxaa asiga naftirkiisa wuxuu leeyahay ilaa iyo maxaa la yirahdaa stage badan ayuu leeyahay oo muscle pump maxaa la yirahdaa respiratory pump iyo waxyaabo soo hoosgalaya. so hadda iska soo koobna marka venous return-ka maxaa sababaya inuu bato. waxaa sababi karo
ku inspiration qofku markuu inspiration qaato waxaa dhacayo intrapleural pressure-ka inuu bato. So intrapleural pressure-ka haddii uu bato marka maxaa dhacayo waxaa la dhahaa waxaa compression lagu sameyn doonaa inferior vena cava. Okay, inferior vena cava maxay sameynaya marka dilatation marka. Okay, inferior vena cava ayaa kala bixi doona. So waxaa badanaya marka venous return-kii ayaa badanaya. Okay, so sidoo kale maxaa la yiraahdaa venous return-ka wuxuu ku badan karaa marka waxaa waaye in intra abdominal pressure uu bato. asigana markuu intra abdominal pressure-ka uu bato waxaa dhacayo constriction of the venous inuu dhaco. So inuu bato marka venous return. Okay, waxaan ku dhahay venous return wuxuu ku badan karaa inspiration marka qofku uu sameeyo maxaa dhacayo diaphragm-ka hoos ayuu aadi doonaa, thoracic cage-ki uu kala bixi doonaa. Okay, hadalkan muhiim waay. thoracic cage uu kala bixi doonaa, diaphragm-ka hoos ayuu aadi doonaa, inspiration qofka qaatay, compression of inferior vena cava dhacay, inferior vena cava ay xasmid doonta dilation. So waxaa badan doona marka venous return. So that is the why of venous return uu bato marka. Okay, labo waxaa waaye heart rate. haddii heart rate uu bato cardiac output-kana waa badanaa. hadalkaas muhiim waa inaad taqaan. Okay, heart rate-ka hadduu bato cardiac output-kana waa badanaa. heart rate-ka suu ku badan karaa marka heart rate-ka wuxuu ku badanaa waxaa jira waxyaabaha heart rate-ka badin karo inaad taqaan muhiim waa physiologically iyo pathologically ba labadaba way ku badan karaan heart rate-ka. So haddii marka pathologically uu bato heart rate-ka waxaa dhacayo in uu bato cardiac output. tusaale ahaan heart rate maxaa badin karo sympathetic. Okay, sympathetic autonomic nervous system, sympathetic autonomic. Okay, maxay badinayaan heart rate-ka ay badinayaan epinephrine, norepinephrine. where is guys epinephrine iyo norepinephrine maxay badinayaan heart rate-ka. heart rate-ka hadduu bato cardiac output-ka waa badanaa. Okay, so marka haddii heart rate-ka uu yaraadana cardiac output waa yaraana. So venous return-ka iyo heart rate-ka labadaba direct proportional waxay ku yihiin maxaa la yiraahdaa maxaa la dhahaa cardiac output-ka. haddii cardiac output-ka uu bato heart rate-ka waa badanaa, hadduu yaraado cardiac output-ka heart rate-ka waa yaraana. Okay, waxaa jira sidoo kale waxa la yiraahdo prelude. hadalkan muhiim waa prelude iyo afterlude. Okay, afterlude hadalkan muhiim waa runtii waa inaad taqaanaa prelude afterlude. intiina badan haddii aad tahay qof oo clinic ah prelude afterlude marar badan waa maqashay. ilaa markasta waxaa lagu soo hadal qaadaa pharmacology marka laga hadlayo waxaa lagu dhahaa prelude-ka waxaa badanaya daawadaas afterlude-ka. So marka muhiim waa. Okay, so prelude-ka marka maxaa badinaya prelude maxaa laga wadaa, afterlude maxaa laga wadaa. prelude waxaa laga wadaa inta jeer uu cardiac kala baxaayo. Okay, markuu dhacayo feeling phase markuu dhacayo ventricle-ka waxay sameyn doontaa stretching of the muscle fibers. So marka inta jeer uu ventricle-ka kala baxaayo stretching uu sameynayo waxaa loo yaqaana prelude. Okay, so macnaheedu waxaa waaye prelude-ka haddii uu bato cardiac output-kana wuu badan doonaa. cardiac output-ka wuu badan doonaa, contractility-na wuu badan doonaa. sidee prelude maxaa la wadaa waa stressing of muscle of cardiac muscle fibers. Okay, muscle fibers stressing macnaheedu maxaa waa inay kala baxaan. Okay, waxaa balaaran doono waxaa la yiraahdaa cardiac muscle fibers ka balaaran doono haddii meesha ay weynaato during diastole markii lagu jiro. Okay, haddii ay weynaato marka maxaa dhacayo markii uu dhacayo diastole-ka haddii ventricle-ka kala sii baxdo maxaa dhacayo dhiig badan inuu meesha soo galo. So maxaa dhacayo marka waxa la tuuraayana aad u badan doonaan. Okay, so that is the prelude. marka afterlude maxaa marka afterlude waxaa waaye cadaadiska lala kulmaayo markii dhiigga la tuuraayo. dhiigga markii la tuuraayo pressure badan oo lagu tuuri doonaa. Okay, so waxaa jira waxa la seminal valves. seminal valves-kaas marka haddii maxaa yiraahdaa ay fiican yihiin qofka normal u yahay peripheral resistance-ga low waaye oo cadaadiska dhiig la kulmaayo waa yar. laakiin haddii cillad ay ka jirto valveskaas oo tusaale ahaan seminal valveska qaasatan aortic-ga haddii cillad ay ka jirto ama pulmonary-ga maxaa dhacayo peripheral resistance-ga waa badi doonaa. haddii peripheral resistance u badatona cardiac output-ka wuu yaraa doonaa. So afterlude waa waxay tahay kan waa direct proportional waa kan waxaa waaye not direct proportional. Okay, not direct proportional. So waxaa dhina marka waa not direct proportional.
proportional to cardiac output. So afterload-ka maxaa dhahnay waxaan dhahnay waa dhiigga ejection period markii dhiigga la tuurayo. Okay, preload-ka waxaa soo dhahan during diastole-ka waay. Afterload waxaa waaye dhiigga markii la tuurayo oo la tuurayo maxaa la yidhahda cadaadiska ay kala kulmayaan seminal valveska waxaa loo yaqaanaa waxaa la yidhahda afterload. So marka haddii afterload-ka cilad ka imaado tusaalahaan oo kale hadduu dhaco aortic stenosis hadduu dhaco ama uu dhaco pulmonary stenosis hadduu dhaco maxaa badi doono peripheral resistance-ga badi doono waxaa dhici doonta marka cardiac output inuu yaraado. So marka inverse proportional ayay isku yihiin marka haddii afterload-ka uu bato cardiac output waa yaraanaa haddii cardiac output uu badan yahayna maxaa la yidhahdaa afterload-ka waa afterload-kana waa yaryahay. Okay, so waa irreversibly proportional. Okay, indirect proportional waa dhihi karnaa waa indirect. Okay, waxaan dhihi karnaa waa indirect proportional. Okay, maxaa kaloo noo dhiman contractility, heart rate-ka, venous return-ka inta ugu muhiimsan waa unanaas. Okay, so marka waxaa ka hadlaynay factors determining cardiac output waxaa sheegnay ko venous return-ka ayadoo direct proportional ku ah maxaa la yidhahdaa cardiac output-ka. Heart rate-ka ka hadalnay ayadana waxay direct proportional ku tahay maxaa la yidhahdaa cardiac output-ka hadduu bato way la badanyahay. Sidoo kale maxaa la yidhahdaa preload-aan ka hadalnay preload maxaa dhahnay waa halka during markii diastole-ka lagu jiro dhiigga uu soo buuxsamaya inay kala baxaan muscle fibers cardiac muscle fiberska oo dhiig badan meesha soo galo cardiac output-kan uu bato waxaa loo yaqaan preload. Afterload waxaa dhahnay waxaa la dhiigga markii la tuuraayo ejection period-ka markuu dhacayo cadaadiska seminal valveska la kulmaya cadaadiskaas oo resistance-ga dhacayo waxaa loo yaqaanaa afterload. So waxaa dhahnay marka afterload iyo cardiac output waxay isku yihiin indirect proportional. sababtan waxaa dhahnay afterload-ka haddii cilad ay ka dhacdo seminal valveska haddii cilad ka dhacdo aortic stenosis hadduu dhaco pulmonary stenosis hadduu dhaco maxaa dhacayo waxaa cilad ku imaan doonto waxa la yidhahdo cardiac output.